Asalaamu calaykum walaalayaal waa idin salaamay waa walaalkii Saki Cabdi Yaasiin maanta waxaan rabaa inaan halkan kugu soo gudbiyo mowduuc aad iyo aad xasaasi u ah waxaa jirta waxaadan marna aaminayn iyo waxaad aaminayso waxaan u kala saaraynaa labadan shay waxaad aaminayn waxay noqonaysaa waxaadan weligaa arag oo aadan filayn inaad aragto balse ugu dambeyntii aad aragtay tan kale waxaad rajaynaysaa inaad aragto ama aad aragtayba oo aad horay u taqaanay balse waxaa labadaasba shayba ka horeeya qadarta Alle subxaanahu wa tacaala intaad ku nooshahay koonkan wax walba waad arkaysaa Soomaalidu waxay ku maamaadaa nin adduunyo joogow maxaa aragti ku laaban haddii aad taqaanay ama aad u maleynaysay in dadka u dhashay dalkaas Ingiriiska ama dadkaas reer galbeedka bas inay leeyihiin indhaha buluuga iyo tinta baroonka waxaa jirta dad Afrikaan ah oo leh indho buluuga oo waliba aad u qurxoon iyo timo baroona waxaa su'aal mudan maxay tahay falcelinta aad ka bixinaysid haddii ay tahay markii koobaad oo aad aragtay nin madow ah ama gabar madow ah oo leh indho buluuga iyo tin baroon ah marka toos u sii fiirisana wata jinsiyadda Afrikaanka jirku waa madow sanku waa balaaran yahay tintuna waa adag tahay waliba dadkan waxay badankood ku nool yihiin Afrikadan dhexe balse taas waxaan uga haraynaa abuurista Alle subxaanahu wa tacaala waxaa jirta dhacdo ka dhacday dalkaas UK qaasatan magaalada London 2010kii laba waarid oo Nigerian ah ayaa waxay dhaleen ilmo cadaan ah oo timo baroona leh arrintaas waxay noqotay arrin la yaab leh aabihii dhalay markuu arkay wuxuu qaaday shock oo wuxuu aamini waayay wuxuu is yiri naagtaadu waxay samaysay gogol dhaaf waxay Soomaalidu u taqaano oo waxaa dhalay ilmaha nin cadaan ah kadib ilaa sheekadii ay gaadhay in ilmahaas la soo baaro DNA-giisa kadibna shakiga uu ka baxay aabaha dhalay cunuga haddaba dadka qaar waxay u arkaan in qofka madowga ah oo leh indhaha buluuga iyo tinta baroonka uu yahay falxumo halka dadka qaar ay u arkaan qurux adigu maxaad u aragtaa arrintan noogu soo qor dhanka hoose ee commentiga haddaba dadkan waxay ku nool yihiin badankood wadamada kale ah wadanka Ethiopia Kenya Madagascar Ghana Gambia Zambia Congo Rwanda Uganda iyo Liberia iyo wadanka Burkina Faso iyo wadamo kale oo badan intaan warbixintan diyaarinayay waxaan arkay dad Soomaali ah oo leh indho buluuga iyo timo baroona website-yaduna way qorayeen balse kuma badna Soomaaliya dadkan intaas ayay noo waagyahay mowduuceeni maanta oo walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh